waxaa jiray qarnigii 19aad magaalooyin ka mid ah Yurub halkaas ay ka soo muuqatay haweeney magaceeda dhabta ayaa Margaretha laakiin dunida ay ku baratay magaca Mata Hari micnihiisuna yahay indhaha qoraxda. Waxay ahayd haweeney leh soo jiidasho xeelad iyo sir aan la fahmi karin. Baris ayay u timid si ay u bilowdo nolosheeda fanka. Bandhigyada qoobka ciyaarka ay samaysay waxay ahaayeen kuwo dhaqameed halis leh isla markaana soo jiidasho leh. Dadka oo dhan waxay la yaabanaayeen firfircoonideeda. Magaceeda ayaa isla markiiba noqday mid caalami ah, laakiin sheekadu ma ahayn kaliya qoobka ciyaar, waxay ku dhex jirtay sirdoonka, siyaasadda iyo arrimo halis leh. Xiriiradeeda bulsho iyo siyaasadeed ayaana ka dhigay mid lagu xasuusto halis iyo qarsoodi, ayadoo qof kasta oo nolosheeda soo gala uu la kulmo halis qarsoodi ah. Sanadkii markuu ahaa 1917 waxaa lagu eedeeyey basaasnimo, waxaana kiiskeeda lagu xukumay toogasho. Laakiin taariikhyahanadu waxay ku doodeen in kiiskii ay la kulantay uu ahaa mid si siyaasadeed loo abuuray si looga qariyo fashilkii dagaalka ee Faransiiska. Ilaa maanta magaca Mata Hari wuxuu noqday astaan u taagan haweeney sir leh oo raad aan la tirtiri karin ku reebtay taariikhda. Sheekadeedii waa isku dhaf halis, sir iyo xiiso, taasoo ka dhigaysa mid weli dadka soo jiidata. Waa idin salaamay daawadayaal, magacaygu waa Xaliima Daa'uud. Intaan gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo channelka like-kanaad ii saarto. Channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon, dambiyada qarsoon iyo xogaha caalamka. Markaan aanoo bilaabo sheekadeeni maanta. Mata Hari magaceeda dhabta ah waa Margaretha. Waxay dhalatay 7 Agoosto 1876. Waxay ku dhalatay Netherland, Holland. Magaca Mata Hari micnihiisu yahay indhaha qoraxda ama barta qoraxda. Magaca iyadoo dooratay markii ay bilowday nolosheeda fanka ee Baris. Qoyskeeda iyo dhalashadeeda waxay ka dhalatay qoys dabaqada dhexe ah. Aabaheed oo ahaa ganacsade koofiyadaha iibin jiray, halka hooyadeed ay geeriyootay markii ay jirtay qiyaastii 15 sano. Geerida hooyadeed waxay keentay in iyada iyo walaalaheed lagu kala daayo qoysaska ehelka, taas oo saameyn weyn ku yeelatay nolosheeda. Socdaalka ay ku timaaday Baris iyo bilowgii dhaqanka sanadkii 1903 waxay u guurtay Baris si ay u bilowdo nolosheeda cusub. Halkaas ay ka bilowday fankeeda waxayna ku shaqaysatay sidii model farshaxanista ah. Bandhigeeda ugu horeeyay ee muhiimka ah wuxuu dhacay 13 Agoosto 1905, taasoo ka dhigtay mid caan ah uguna magac dambeysay caalamka. Kadib waxay caan ka noqotay Yurub. Waxay baratay qoobka ciyaarka Hinduuga ee qadiimiga ah, laakiin taariikhyahanadu waxay ku tilmaameen sheeko la abuuray taasoo loo isticmaalayay soo jiidasho. Mata Hari waxay ku soo shaabaxday qaabka ciyaar xasaasiyad leh oo dadka aad u xiiseynayeen, halkaas ay ku dhex milantay dhaqanada reer Aasiya sida Hindiga. Waxay noqotay mid aad loo jecel yahay, waxayna ay ka mid ahayd dadka ugu caansan ee bandhigyada Baris ka dhici jiray. Inta ay Baris joogtay waxay yeelatay xiriiro badan oo dhanka siyaasiyiinta, saraakiisha ciidanka iyo ganacsatada reer Yurub. Xiriiradani waxay noqdeen sabab u ahayd inay sirdoonka uu soo jiito, maxaa yeelay waxay u arkayeen inay heli karto macluumaad muhiim ah oo u gudbiso dhinacyada kala duwan. Safaradeeda Yurub ka hor dagaalka wuxuu ahaa intay caan ka noqon waxay booqatay magaalooyin muhiim ah sida Baris, Berlin iyo kuwo kale oo badan oo ka tirsan Yurub, iyada oo bandhigyo iyo qoobka ciyaaro ka sameynaysay tiyaatarada iyo hoolalka caanka ah ee qaaradaasi ku yaal. Dagaalkii koowaad ee adduunka markii dagaalku bilaabay 1914, Netherland waxay ahayd wadan dhexdhexaad ah, sidaas darteed waxay si xor leh u mari kartay xuduudaha qaar. Waxay u safartay 100 kiiloomitir iyadoo dhex maraysa Faransiiska, Netherland, Spain iyo wadamo kale. Arrintaas ayaana ka dhigtay mid dan weyn u leh hay'adaha sirdoonka. Dhexdhexaadnimada Netherland waxay siisay fursado badan, taas oo suurtagelisay inay si xor leh u safarto. Waxay inta badan u safraysay Faransiiska, Netherland iyo Spain si ay uga fogaato goobaha dagaalka, taasoo sidoo kale soo jiidasho indhaha hay'adaha sirdoonka siisay.
Siday u bilaabatay basaasnimadeeda waxay ahayd waxaa la rumaysan yahay inay basaasnimada bilowday markii ay dagaalkii koowaad ee adduunka socday, gaar ahaan 1915kii markii oo danjire Jarmal la hadlay oo ka codsaday inay u soo ururiso macluumaad intii ay u safraysay Faransiiska. Waxaa laga waramay inay aqbashay, taas oo loo arkayay bilow wanaagsan oo howlaheeda basaasnimo. Waxaa lagu magacaabay code name H21 si loo aqoonsado iyadii inta howlaha sirdoonka waday. Warbixino taariikhi ah ayaa la sheegay in sanadkii 1915kii Mata Hari lagu soo dhaweeyay Holland iyadoo lala hadal siiyay sarkaal u hadlay Jarmalka kaasoo bixiyay lacag ay u dhigmi lahayd ku dhawaad $61,000 si uu u ururiso xog ku saabsan safarkeeda soo socda ee Faransiiska. Iyadu waxay sheegtay inay aqbashay lacagta, inkastoo hadalkaasi ku tilmaamtay magdhow u ah hantideedii laga qaaday markii uu dagaalku bilowday. Intii lagu jiray dhamaadkii 1916kii, hay'adaha sirdoonka Faransiiska waxay ku guuleysteen inay dhexdhexaadiyaan fariimo sir ah oo Jarmalka u diray Berlin, kuwaas oo lagu tilmaamay wakiil la yiraahdo H21. Tani waxay keentay in hay'adaha Faransiiska ay aaminsanaadaan in Mata Hari ay tahay sirdoonka lagu magacaabo H21, waxaana fariimuhu ay noqdeen mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee lagu soo oogay basaasnimadeeda. Inkastoo lagu eedeeyay inay gudbisay sir Jarmalka ah sida siraha ciidamada ama magaalooyin, cadeymahaas ayaana inta badan ahaa kuwa aan buuxin shuruudaha adag ee sirdoonka. Islamarkaana waxaa jira dood weyn oo taariikhyahanadu ku sheegeen in xogta la aruuriyay ay ahayd mid aan qiimo militari lahayn ama laga been abuurtay. Tani waxay ka dhigan tahay dooda ku saabsan howlaheeda basaasnimo mid aad u muran badan ilaa maanta. Inay og tahay iyo shakiga ka yimid sirdoonka waxay bilowday inay ka shakiyaan dhaqdhaqaaqeeda, gaar ahaan markii ay aaday Jarmalka xilligii uu dagaalka socday. Waxaa la sheegay in xog la haystay ay ku jireen fariimo muhiim ah oo loo diray Berlin, kuwaas oo laga shakiyay inay tilmaamayaan in la bixiyay xog muhiim ah. Intii lagu jiray dagaalka, Mata Hari waxaa lagu soo oogay inay gudbisay macluumaad dhinaca Jarmalka ah iyadoo loo arko inay basaas u ahayd Jarmalka. Xiriirkeeda dhow oo ay la lahayd saraakiil ciidan oo kala duwan iyo safaaradooda Yurub dhexdeeda ayaana ka dhigtay mid hay'adaha sirdoonka Faransiiska si gaar ah u eegaan. Qabashadeeda Mata Hari waxaa la qabtay 13 bishii labaad 1917. Waxaa lagu qabtay magaalada Paris iyadoo lagu eedeeyay basaasnimo u dhaxaysay Jarmalka iyo Faransiiska. Waxaa lagu xiray hotel ay degneed, waxaana ugu dambeyn la geeyay maxkamad militari oo lagu eedeeyay inay si ula kac ah u gudbisay sirta dagaalka. Maxkamadeynteeda iyo eedeymaheeda, dacwad oogayaasha ayaana ku doodaya in xogta ay u gudbisay Jarmalka ay sababi karto dhimashada 10,000 oo askari, inkastoo aysan jirin caddeyn muuqata oo muujinaysa inay si dhab ah u gudbisay sirta muhiimka ah. Waxayna ahayd maxkamad aad u kooban oo fursad badan siinaynin difaaca adag. Waxay ku eedeeyeen in ay dhaqan gelisay howlo badan oo sababay jabka ciidanka. Hadalkeeda iyo difaaceeda wuxuu ahaa Mata Hari waxay marar badan sheegtay inaysan marnaba Jarmalka u gudbin wax sir ah, islamarkaana ay xaqiijinayso inay ka shaqaynaysay dhinaca Faransiiska inkastoo ay aqbashay lacagta Jarmalka ahayd. Xukunkeedii maxkamadda militari waxay si dhaqso ah u heshay kiiskan, waxayna ku xukuntay dil toogasho. Waxay dhimatay 15 Oktoobar 1917 waa berigii hore. Waqti kadib, taariikhyahanadu waxay ku doodeen in kiiskani uu ahaa mid muran badan leh. Qaar waxay u arkayeen basaas dhab ah, qaarna waxay ku tilmaameen qorsho oo lagu beegsanayo xaaladaha dagaal ee Faransiiska ee xilligaas. Mata Hari waxay noqotay astaan caalami ah oo haweeney soo jiidasho leh oo sirdoonka ku lug leh. Waxaa laga sameeyay filimaan, buugaag iyo bandhigyo iyo taariikh nololeedyo kala duwan oo aad u tiro badan. Waxaa jiray dood ku saabsan in maxkamaddu aysan si cadaalad leh u dhicin, maxaa yeelay waxaa la sheegay in cadeymo la been abuurtay ama si qaldan loo fasiray si loo eedeeyo. Xaaladda dagaalka ee Faransiiska, dagaalkii koowaad ee adduunka intiisii kale, Faransiisku ayaana xaalad adag ku jiray
xagga dagaalka waxa ayna u baahnaayeen inay muujiyaan in awood u leeyihiin inay difaacaan qarankooda. Tani waxa ay ka mid ahayd sababaha loo isticmaalay kiiska Mata Hari. Muranka ku saabsan basaasnimadeeda iyo cadaalad darrada maxkamadda. Inkastoo Mata Hari lagu eedeeyay inay Jarmalka u dirsatay sir military oo aad u qiimo badan intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka, xaqiiqda ayaana ah in arrintaani ay weli muran weyn ka taagan tahay. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaana soo bandhigay in si rasmi ah Jarmalka uu 1930kii si rasmi ah u sheegay in aynan jirin caddeyn muujinaysa in ay si weyn u basaastay dhanka Faransiiska. Waxaa kale oo la helay dukumiintiyo sheegaya in la waayay wax caddeyn dhab ah oo lagu caddeyn karo eedeymaha la saaray. Tani waxa ay keentay in dad badan maanta u arkaan inay tahay dad lagu beegsaday si qaldan oo lagu qarinayo guuldarrooyinkii dagaal halkii ay dhab ahaantii basaas weyn ahayd. Sababta ay u noqotay bartilmaameedka Faransiiska xilligaa waxay ku jirtay xaalad dagaal oo aad u liidata, waxayna ciidamada Faransiiska bilaabeen inay la kulmaan guuldarrooyin waaweyn iyo niyad jab weyn. Sidaas darteed, hay'adaha sirdoonka ayaana door biday inay sheeko sirdoon u rogaan si ay ugu qeexaan khatar weyn, si dadweynaha loogu dhigo inay rumaystaan in dowladda ay gacanta ku hayso xaaladda. Qaar ka mid ah khubarada taariikhda ayaana sheegay in doorashadan ay ahayd mid siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu qariyo fashilka dagaalka ee Faransiiska. Sheekooyinka ku wareegsanaa dambiyada la sheegay iyo fikradaha kale. Inkastoo kiiska Mata Hari uu caan ku noqday eedeymaha basaasnimo, waxaa jiray fikrado sheegaya in cadeymaha maxkamadda ay ahaayeen kuwo liita oo mararka qaar xitaa laga been abuurtay ama si qaldan loo fasiray. Hay'adaha sirdoonka sida sirdoonka Ingiriiska ayaana sheegay inay haysteen dukumiintiyo ay ku andacoonayaan inaysan jirin wax caddeyn rasmi ah oo muujinaya in wax sir ah u gudbisay dhinacyada dagaalka. Haddii intaan nala soo gaartay daawadayaal, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Like dhe muuqaalka, share-na dheh si saaxiibo badan u gaarno qaybta hoose ee faaladana. Fikirkaaga nagula wadaag. Saaxiibada cusubna soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale. Mininkiina leewaa.